بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan joognaa safaaradda waddanka Itoobiya waxa ka dhacaya mudaharaad aad u weyn oo ay soo qabanqaabiyeen jaaliyadda Soomaalida Itoobiya oo ay kaga soo horjeedaan dilkii iyo gumaadkii arxan darrada ahaa ee ka dhacay meesha la yiraahdo Gaashaamo Jaamac Dubad halkaas oo dawladda Itoobiya ama liyu boolisku ay dad badan ku xasuuqeen waxaanu eegi doonaa dadkan oo aad u fara badan oo maanta raba inay dareenkooda ka muujiyaan sida ay ugu xun yihiin dhibaatadii ka dhacday Jaamac Dubad waad aragtaa dhawaaqoodii waad aragtaa haddii ilaahay yidhaahdana waxaan u waraysan doonaa mid waa dad aad u fara badan oo aad uga xun dhibaatadii ka dhacday Gaashaamo waa arrin aad iyo aad dadkaasoo dareenkooda ku muujinaya sida aad iyo aadka uga xun yihiin dhibaatada ka dhacday meesha la yidhaahdo Gaashaamo waa dadkan maanta waxaan joognaa waa Slater waa 275 Slater waa haween safaaradda Itoobiya ee ku leedahay waddankan Canada dhammaan jaaliyadda Itoobiya ee Soomaaliya ayaa waxay aad iyo aad ugu horjeedeen dhibkii foosha xumaa ee ka dhacay meesha la yiraahdo Jaamac Dubad ama Gaashaamo daawasho wanaagsan waxaan hadhow tolo idiin soo gudbin doonaa ama aan idiin sheegi doonaa sida wax u dhaceen waxaanan waraysan doonaa qaar ka mid ah guddidii soo qaban qaabisay arrintan iyada ah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu say daawasho bacan iyo isku soo noqosho badan Who is the criminal? 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 Abdillah down! Abdillah down! No justice! No peace! No justice! No peace! ما شاء الله waxaad arkaysaa imika iyadoo ay dad badan ay ku soo qulqulayaan goobtii mudaharaadka laga sameeyay wali hadda imika ay arrintu bilow tahay laakiin waxa soo socda dad badan oo ka soo jeeda dhibaatadii ka dhacday Gaashaamo ee Jaamac Dubad waxaanu Maxamed cilmi oo kamid ah dadka Soomaaliya Itoobiya ee ku nool waddankan Canada ayaa soo arrintaas soo qaban qaabiyay Who is the criminal? Who is the criminal? Who is the criminal? Abdillah down! Abdillah is criminal! Leo police, run! Who is the criminal? Who is the killing the people? Who is killing the people? Who is the criminal? Who is killing the people? Who is the criminal? Who is killing the civil? Who is killing the children? Who is the criminal? Who is the criminal? Who is killing the people?
Justice for Jama Dube! Justice for Jama Dube! Justice for Jama Dube! Justice for Gashamo! Justice for Hashim! Justice for Dawali! criminal! Who is the criminal? Who is the criminal? Who is the criminal? Who is the criminal? يا ضد الله waxa ready Who is the criminal? Abdilay 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 Who killed the people? Abdilay Who killed the children? Abdilay Who killed the mothers? Abdilay Who is the criminal? Abdilay Abdilay down! Abdilay down Abdilay down! Abdilay down Abdilay هدعوا! Abdilay had'u Abdilay هدعوا! Abdilay had'u Abdilay هدعوا! Abdilay had'u دقيقة عبكوا هدعوا! digi abku had'u دقيقة عبكوا هدعوا! digi abku had'u دقيقة عبكوا هدعوا! digi abku had'u كريمنالكوا هدعوا! criminalku had'u دقيقة ما تدلي يا هدعوا! had'u عرور لا يا هدعوا! had'u خويا الله يا هدعوا! had'u أم الأضاح هدعوا! had'u هدعوا! had'u هدعوا! had'u أم الأضاح هدعوا! had'u عبديلي هدعوا! had'u عرور الله يا هدعوا! had'u هدعوا! had'u هدعوا! had'u Hadi يا ما بلعبها بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. We are here today to protest, to show our grievance and sorrow about the recent massacre in a village called Jama' Dubbet in the district of Gashamo in the Somali region of Ethiopia. In that vicinity, 21 people, 14 men and 7 women have been killed by the paramilitary police called the Liu Police of the Somali region. These innocent citizens did not belong to any terrorist group, neither did they commit any crimes. One of the victims that was killed there was a British woman who came to visit her mom with her 2-year-old boy. Her mother has been killed. She has been killed, and that little boy has been injured. That little boy has lost his mom and his grandmom at the same time. And these people, they did not commit any crime. They were just simply killed by the paramilitary group, the so-called Liu Police. We asked the federal government of Ethiopia to step in and to find the perpetrators of that atrocity and to hold them accountable for their crimes. We asked the federal government of Ethiopia
to make sure things like this will not happen again in Ethiopia and to value the life and the liberty of its own people. Mr. Abdi Umar Ilay should be brought to international tribunal. He should be held responsible for the terrorist act of his paramilitary groups, the so-called Liu police. And the responsibility, it's the federal government's responsibility to ensure the safety and the security of its own people. Thank you. La diaspora de la région Somalie d'Éthiopie condamne fermement les massacres de 21 personnes le 6 juin à Jamadoubet. Liu Police a commis d'innombrables exactions contre les civils et n'a jamais été à ce jour tenu imputable de leur action. Nous exigeons de la part du gouvernement fédéral d'Éthiopie l'ouverture d'une enquête complète et impartiale sur les événements qui se sont produits à Jamadoubet le 5 juin dernier. Liu Police doit répondre de ces crimes et les responsables sévèrement châtiés. Nous suivrons de près les développements de la situation et nous réagirons en conséquence. Le gouvernement fédéral éthiopien doit ouvrir une enquête complète, exhaustive sur les massacres de personnes innocentes. La diaspora ici est réunie aujourd'hui pour condamner fermement ces actions et, encore une fois, je précise, nous allons suivre la situation de près pour que les coupables soient sévèrement châtiés. Merci à tout le monde. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta halkan waxaanu isugu nimi magaalada Ottawa safaaradda Ethiopia horteeda inaanu shucuurtayada ku muujino dadkii lagu laayay magaalada Jamadoubet gobolka Gaashaamo ama degmada Gaashaamo taasoo xasuuq aad u fool xum ka dhacay oo lagu laayay dad maata iyo dad caruura iyo wadaado iyagoo ku tukanayay salaadii duhur masaajidka dhexdiisa halkaasoo loo kala aabayeelin caruur iyo dumar iyo ciroole iyo wadaadaba marka iyo hanti badan oo la dhacay ayaanu maanta shucuurtayada halkan kaga muujinaynaa hadaan nahay jaaliyada reer kililka shanaad kililka shanaad ee dalka Ethiopia marka waxaanu leenahay Abdi Ilay xasuuqa uu ku hayo dadka yaga iyo deegaanka yaga waa inay dawladda Ethiopia indha gaar ah ku eegto u soo jeesato intaasaan ka codsanaynaa insha Allah maanta halkan isugu nimi hadaanu nahay dadka ka soo jeeda kililka shanaad ee dawlad goboleedka Ethiopia waxaanu halkan maanta isugu nimi inaanu ka hadalno ama aanu concern kayaga ka dhiibano dadka lagu laayay tuulada Jamadoubet iyo dadka kale ee deegaankaas Gaashaamo ee habeen iyo maalin lagu hayo hadidaada lagu hayo dilka lagu hayo maxay hayday dhaca iyo xasuuqa ayaanu ka soo horjeednaa waxaanu leenahay dawladda Ethiopia ee federaalka ah inay maxay teenay ay wax ka qabtaan inay dadka Ethiopia u dhashay ee citizens-ka ee wadankooda u dhashay inay xuquuqdooda u raadiyaan oo ay xaqooda maxay hayday u soo dhiciyaan inay ninkan la yiraahdo Abdi Ilay ee xasuuqa u taagan dadka reer Ethiopia ay ka qaadaan maxaa la yiraahdaa ka qaadaan xilkan ay u dhiibeen xilkan uu isticmaalay sida aan maaragtay sida aan xuquuqda bini aadanka ka fog uu isticmaalay ee uu ku leynayo dadka citizens-ka ah inuu maxay hayday laga qaado responsibility-ga laga qaado in la xidho in lagu qaado maxkamad oo la hor keeno maxkamad oo maxay taanay loo raadiyo dadka masaakiinta ah ee uu laayay xaqoodii ayaanu maanta halkan iskugu nimi we are voicing our concerns about the killing of innocent Ethiopian citizens in the region of Somalian Ethiopian region. We're here today to stand with them, to support them, and to voice our concern
about the unjust that's happening in that region and the killing of innocent people. And we are here to say that we are very concerned. We are very concerned, and we want to change. We want justice for these people, and we want the federal government, Ethiopian federal government, to take immediate action against this issue. If there is no action taken, we will continue to come here. We will continue to voice our concern, and we will fight for justice of those innocent people, poor people who have no ability and no way of defending themselves. Thank you. aad iyo aad baad mahadsantahay. ha dhaco waxa weeye maanta sidaa la sheegay waxaanu isu keenay xumaanta aynu ka xunnahay xasuuqa dadka masaakiinta loo geystay shacabka ee lagu laayay guryahoodii iyagoo oo jooga oo wax dembi ay galabsadeen aanay jirin. waxaynu ka xunnahay sida ay dawladda federaalka uga aamusan tahay inay arrintaa ka hadasho. waxaanu cod dheer ugu soo gudbinaynaa dawladda federaalka inay tallaabo ka qaado arrinkaa ka dhacay jaamac dubbad, inay ka hadasho xilkana ka qaado cabdi cumar ilay. dadka masaakiinta ee shacabka ee dhulkaa ku dhaqan oo ilaa qarniyo dalkaa degganaa isticmaalkii ka hor, waxaa maanta la tijaabinayaa in laga saaro dalkoodii. waxaa loo yaqaano ethnic cleansing ayaa la doonaya in lagu sameeyo dadka oo laga soo baqa cararsiiyo dhulkoodii iyo guryahoodii. waannu ka soo hor jeednaa, mana yeelayno. marka waxaannu leenahay safaaradda etoobiya waannu la kulannay, waxaanan u gudbannay cabasho ku socota dawladda federaalka. cabashadaana waannu sii wadaynaa ilaa inta ay dhego wax maqlaya ay helayaan. waxaannu leenahay si joogta ayaannu u joogtayn doonnaa isu imaatinkan ka dhankaa dawladda deegaanka soomaalida. waxaanaannu leenahay cabdi cumar ilay ha dhaco, cabdi cumar ha dhaco. waxaanaannu sida runtii dadka halkan maanta isugu yimi waa dad tiro badan weeye, sidaas oo aanu weliba ay jirto cimiladu aanay wanaagsanayn oo maalin rooba ay tahay. safaaradda oo wadahadal aanu la yeelnay lafteeda aan ugu ballan qaadnay inaanaan dad fara badan oo rabshad geysta aanaan isu keenin. markaa waxaan leeyahay cududdayada waannu muujinaynaa haddii ay suuro geli weydo inaannu safiiradda la kulanno, inaannu jawaab ka helno dawladda deegaanka iyo dawladda federaalka labadaba. Who killed the man?
halkan waxaan ka hadlaynaa annagoo ah jaaliyadda reer Ethiopia ku nool kilinka shanaad cabdi ilay baan ka cabanaynaa cabdi ilay baa dadkaygii laayay googooyey aasay waxaanu dawladda Ethiopia weydiisanaynaa inay dadkayaga ku ilaaliso kilinka shanaad haddii ay taa dawladda Ethiopia ka soo bixi weydo talaabada dambe qaadayna si kala way kaanaysaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkaa ku soo gebagabayno wakhtigiina loo qabtay oo imika gabaabsiya wakhtigiina loo qabtay oo gabaabsiya awgeed ayaannu halkaa ku soo gebagabaynaynaa maanta mudaharaadkan aannu kaga soo hor jeednay safaaradda dalka Ethiopia ee aannu fariinta ugu gudbinaynay maamulka cabdi cumar ilay ee ku amarku taagleeya deegaanka Soomaalida ee kilalka shanaad waxaannu doonaynaa inaannu jawaab degdega ka helno dawladda federaalka fariimo badanna waannu gudbinnay qoraallana waannu u dirray waxaannu la xidhiidhnay maxkamadda adduunka international tribunalka waannu la xidhiidhnay qoraal baannu u dirray amnesty international qoraal baannu u dirray united nationska qoraal baannu u dirray waxaannu u dirray 3 meelood oo kala duwan oo international tribunalka baannu qoraallo u dirray oo ay ka mid tahay Kenya Brussels iyo Hague oo ah head office-keeda intaba waxaannu qabnaa ninka cabdi cumar ilay inuu yahay nin criminal istaahilana in la soo taago maxkamadda adduunka sida madaxweynaha dalka Suudaan oo kale dembiga loogu soo oogay sida madaxdii Kenya ee doorashadii xasuuqa geystay loogu soo oogay waxa weeye ummadda Soomaaliyeed ee kilalka degan cid aanu laynina ma jirto dad xataa ay isku ehel yihiin oo isku deegaan yihiin oo isku meel ka soo jeedaan oo ka soo horjeeda systemkiisa ayuu xasuuqay u laayay marka nin qabiil iyo diin iyo dhaqan toona ixtiraamaya maaha ninka waxaanu leenahay waan si degdeg wax looga qabtaa waxaan u mahadnaqayaa dadka faraha badan ee halkan isugu yimi ee maanta shucuurtooda ku muujiyay si ay uga soo horjeedaan ugana damqanayaan waxa lagula kacay dadka walaalahooda ee deegaankii jooga ee dhulkii ku nool waxaanu cod u nahay dadka halka jooga codkoodii waa annaga marka wax loo geystaba waanu qaylinaynaa mana aamusayno ilaa dhibaataynta iyo rabshada lagu hayo dadka laga daayo waxaanu sii wadaynaa dagaalka aanu kaga soo horjeedno maamulka cabdi cumar ilay waxaanaanu rajaynaynaa inay dhagayeelato dawladda federaalka Ethiopia oo ay maqasho dhawaaqa ka soo baxaya diasporaha dadka dibadaha jooga ee u dhashay deegaanka Soomaalida ee Ethiopia waxaanu rajaynaynaa in si degdeg arrinta wax looga qabto waxaana leeyahay dhammaantiin waa mahadsantiin aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa inaad shucuurtiina muujiseen ilaahay haydin daayo ilaahay idin garab galo waxaan rajaynayaa inay fursad wanaagsan inoo noqoto oo la joogteeyo oo maalin walba aynu ku muujino shucuurteena halkaa kaga muujino waa mahadsantiin halkaasaynu ku soo khatimaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaah fulow guuli ku dhaweyde